ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigreega ayaa Khamiistii maanta weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya waxayna tilmaansadeen ciidamada Tigreega sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ciidamada Tigreega Tachawriida oo ah afhayeenka ciidamada Eritrea ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee saaka weerar ballaaran oo afar jiho ah ku qaadeen deegaanka Diyabo ee waqooyi galbeed ee Eritrea. afhayeenka dowladda Itoobiya Lagesi Tulo, afhayeenka ciidamada militariga Colonel Getnet Adene, afhayeenka ra'iisul wasaaraha Bilane Simon iyo wasiirka warfaafinta Eritrea Yemene Gebremeski ayaan si cad uga jawaabin codsiyada ku saabsan in ay ka jawaabaan eedeymaha. dowladda Itoobiya ayaa Arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jiha ku qaadeen ciidamada dowladda Itoobiya. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeynay in uu jabiyay xabadda joojintii. colaadda ka taagan Itoobiya ayaa gobolka ka dhigay xasilooni darro ka dhigtay wadanka labaad ee ugu badan Afrika oo ah wadanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigelinaya midowda Afrika. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa ku booriyay Itoobiya kooxda TPLF gelinkii dambe ee Arbacadii in ay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada military ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan militariga Itoobiya kadib markii uu dagaalku qarxay November 2020, inkasta oo labada wadanba ay si cad u beeniyeen arrintaas. joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo eedeymahaasi ay kor u kaceen kufsiyo dheeraad ah xad dhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo.